sida la arkayay oo warbaahinta la geliyay shalay waxa bilaabatay heerkii ugu dameeyay oo wadada oo laamiga lagu saarayay muddo dhan ayaana shaqadaas loo diyaar garoobayay awal waatii wadada jaygeedii la dhameystiray ilaa iyo 110 kilomitir waatii la dhameystiray ilaa hadaaftiba waatii la gaarsiiyay muddo dhan baa loo diyaar garoobayay in levelka laamiga la saaro ilaa 10,000 oo fuusto oo daamura ayaa guddigu diyaariyay oo waliba deyn lagu soo qaaday oo wax yar mooyay inta kale deyntiisa wali la leeyahay awal waatii la diyaariyay warshadihii daamurka tii karaasharka ama jayga dhammaan qalabkii loo adeegsanayay daamurka dhigitaankiisa oo dhan guddigu uu diyaariyay nooc kasta oo yahay inta markii la isku dubariday ayaa shalay la bilaabay in daamurkii la dhigo waxa hadda qorshaysan waxa weeye 30 kilomitir in horta 10,000 la dhigo oo daamurka la dhigo hadii la idmo 10 kilomitir ayaa hadda wajiga hore la diyaariyay oo hadda diyaar ah oo dhaqso inuu dhamaataan rajaynayna markaas kadibna laba rutfanaad oo kale ayaa la raacinaya hadii la idmo sidoo kale daamurka dhigitaankiisa waxa la socda meelihii buundooyinka u baahnaa ilaa hadda 10 kilomitir 6 buundo ayay u baahnayd waa la dhameystiray samaysankoodii iyo shaqadoodii sidoo kale haday buundooyinkii kuwa buundajiisa ay yihiin ama buundooyinkii biyuhu ay hoos marayeen iyadana kulli waa la diyaarinayaa qalabkoodii iyo nidaamkoodii iyo farsamadoodii guddigu waa diyaariyeen ma garat waaya gudoomiye aad baa u mahadsan tahay 30 kilomitir ayaad sheegtay in daamurka lagu talagalay oo inta loo hayo ay hadda tahay marka laga leexdo magaalada Ceel Daahir oo laamiga weyn laga leexdo dhanka magaalada Ceyrgaabo loo leexdo 30 kilomitir ilaa halkii ayay ku eegyihiin taqriiban waa inta ay gaadho ilaa midigale baan filayaa bay tagaysaa ama ku dhawaanaysaa shaqaduna ma joogsanayso hadii la idmo oo markii daamurka la bilaabo hadii la joojin karaba hawl kasta ka timaado shaqadu way soconaysaa ilaa inta jayga la saaray daamurka lagu dhameeyo laamiga la saaray hadii la idmo ma garat waayahay marka 10,000 oo foosto oo daamura ayaa hadda haysan oo qaybtood adeyn ku soo qaadateen intee ayay idinku filan yihiin ma 30 kilomitir kaliya adigu 30 waa dhaweynayaan saan rajaynayna hadii la idmo mana joogsanayso shaqadu way socotaa wayna soconaysaa insha Allah ta'ala mideeda kale hadda tijaabaha ma loo bilaabay laakiin daafurkii laamigu wuxuu dhacay hadii la idmo maalinta hadda oo ina ku soo socota oo bisha 13 ay tahay ayaa dawladda iyo guddiga isku dhan iyo cidii wadada ay qusayso dhan daahir la isugu tagayaa halkaas oo lagu daafurayaa fayskii labaad laamiga hadii la idmo runtii waxa lagu wadaana waa dadaal oo dhaqaalaha hadda wadada loo hayo oo u yaala ma jiro bal daamurkii waana la ku leeyahay deen kale badan waa la leeyahay oogaaga dekada ka soo xirooda uunba hadda wax lagu wadaa oo shaqada runtii aan ku filayn waayahay marka gudoomiye wadada waxay ku eegtahay jaygiisa magaalada Hadaaftimo kilomitiraad fara badan ayaa Ceyrgaabo iyo Hadaaftimona u dhaxeeya bal intaasi ka waran iyada goorma loo qorshaysan yahay in iyadan la sii bilaabo oo la isku xidho labada magaalo wadada waxa lagu bilaabay Ceel Daahir Ceyrgaabo hadii la idmo sida tanba markii la bilaabay halka loo gaarsiiyay tan kalena waqtigeeda ayaa la gaarsiinaya hadii la idmo waxaan rajaynayaa shaqadu waa soconaysaa ma istaagi doonto insha Allah ta'ala ma garat waayahay mashruucii qof iyo foosto bal isagu xaguu ku dambeeyay mashruucii xoogaa waxaa laga dibdhigay campaign baa rabay in la qabto weyn oo reer Puntland oo dhan dawladda iyo shacabka laga qayb qaato iyo ganacsato campaignkii ayaa xoogaa naga dib dhacay laakiin wali kama aanan quusan oo dhaqso inuu u bilowdo u dhaco ayaan rajaynaynaa hadii la idmo oo madaxweynaha Puntland uu daafuro dadkii waxna waa la ururiyay oo waxa inta waxoon dadkii runtii arrintii dadaal badan bay keentay maantadan reer Sanaag qabaa'ilka deegaan qabiil kamid ah $100 ayay guddiga ku wareejiyeen oo qof iyo fuustadii ka dhalatay dibadii gudubana shaqadii waa socotaa shirkadii iyaga laftigooda diyaar weeye laakiin campaign-kaas ay sugayaan marka shaqadaas inkastoo guddiga dhaqaalaha badan aan soo gaarin oo si riboodaan wax soo gaarin laakiin kulli waxa la wada sugayaa campaign-ka in la qabto anaga laftigaygu campaign-ka dadka in badan ku xirnay marka halkaas wax marayaan iyaduna dilow fiican baa jira inay sii socotana waa rajaynayna ma garad bulshada Soomaaliyeed reer Puntland waxaan ugu baaqayaa wadadaas waa la ogyahay waa mashruucii ugu weynaa ee Soomaaliya ay qabsatay oo isku tashi ay ku qabsatay weeye oo reer Puntland isku tashi ay ku qabsadeen shacabkooda iyo dawladooda iskaashanaya
ayaantii wadada la bilaabay dad badan baa waxay lahaayeen guddiga iyo nimankan culimada iyo nimankan guddiga ahi iyo dawladdu ismaaciil wadada dhisayna waa iska khiyaali wada intaasoo kiiloomitir cidina ma dhisi kadho waa ruwowday oo khiyaaligi waa laga baxay waa la arkay wadadii 5 saac la mari jiray oo halka saac la saac waqti ku dhow lagu marayo mar labaad waxa la oran jiray war daamur wadadan lama saari karo oo heerkii ugu dambeeyay lama gaarsiin karo iyadana hadda waa ruwowday waa la arkaya marka waxaan ugu baaqaynaa reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhan wadada waa sadaqa jaariya in laga qayb qaato waxay tusaale u tahay haddaan Soomaali nahay inaan wax qabsan karno oo dalkeena dhisan karno ilaa dawladda kale iyo hay'adaha kale midna aan u baahnayn marka dadka waxaan ku boorinayaa muslimiinta meel joogada sadaqada jaariga ah oo waxyaalaha Ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu fadliga badana ummadda in wadada loo jilciyo amnigiiba ku ziyaadaya oo dhaqaalihiiba ku ziyaadaya oo xiriirka ummadda Ilaahay baa ku ziyaadaya oo caafimaadka wax taraysa wax walba marka dadka waxaan ugu baaqaynaa wadadaas qof walba si loo yiri qof iyo fuusta meel joogada in laga qayb qaato hadii la haydmo akoonada loogu talagalay dhaqaalaha guddiga ay ku ururiyaana lacagta in lagu soo shubo insha Allah ta'ala ma garat